maanta waa maalintii afraad ee shirka golaha wada tashiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya oo uu shir gudoominayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Runtii intii shirku uu socday maalinta ka dambaysa waa uu ka sii wanaagsanaanayay marka la fiiriyo isfahamka iyo sida ay isula jaan qaadayeen madaxda dowlad goboleedyada dalka runtii iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waxa ay muujiyeen bisayl sida ay u doonayaan in heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka. Hadda marka la fiiriyo sida ay wax u socdaan waxaa gabagabo ah oo hadda heer gabagaba maraya dhamaystirka qodobada ka soo bixi doona heshiiska la filayo in halka lagu saxiixo insha Allah sida qorshuhu yahayna waxaa la sameyn doonaa oo shir weyn oo arrimahaasi lagu saxiixay ama xaflad weyn ama munaasabad la qaban doona maalinta Khamiista sida qorshuhu yahay taasoo wax weyn u ah ama muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed guud ahaan maadaama dadku ay aad uga wardhowrayeen ay u sugayeen natiijada shirkan wuxuu ahaa mid si saraaxad leh had iyo jeer ay madaxdu qodob ugu qaadayeen qodobadii kala hore shirka keenay in mugdiga uu ku jiray doorashooyinka la xiriiray. Waxaa kaloo aad sidoo kale looga hadlayay arrimaha kale iyana muhiimka u ahaa doorashada sida amniga doorashada dhammaantood qodobadaas oo dhan runtii sida muuqata aad baa la isula soo dhaweeyay waxaana la filayaa in maalinta Khamiista haddii ay sidaan sheegay ay madaxdu heshiiska ama natiijada ka soo baxday shirkaasi ay iclaamiyaan oo ay noqoto maalinta ugu dambaysa shirka. Marka la fiiriyo waqtiga juhdiga ay geliyeen madaxda wuxuu shaqaynaysay qaarkood habeen iyo maalin. Ra'iisul Wasaaraha had iyo jeer xudun u ahaa wada hadaladana waxa uu ahaa qofka habeen iyo maalin ka shaqaynayay sidii shirkaas u guuleysan lahaa. Insha Allah waxaana la rajaynayaa marka in shirkaasi Soomaalidu ay ka maqlaan wax lagu farxo oo horseeda in dalka doorasho uu aado doorashadaasna ay noqoto mid dalka oo dhan si daahfuran uga dhacdo.